kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada janaalkeena ka ah wararka aan ku soo gudbino wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada ugu waaweyn waxa qayb ka noqon doona Allah u naxariistay taliyihii ururka lixaad ee ciidamada gorgor oo maanta lagu dilay dagaal culus oo al-shabaab iyo ciidanka dawladda ku dhaxmaray deegaan lagu magacaabo Warciise ee ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasi iyo taliyaha dhimashadiisa dawladda federaalka war ka soo saartay dagaalamayaasha al-shabaab maxay ka yiraahdeen waan soo gudbin doonaa beesha habargidir ayaa la sheegay in markaan ay ku yeelatay baarlamaanka cusub ee Soomaaliland kursi haddaba xildhibaanku ku soo baxay waa kee hambalyo ayaa durbaba bilaabatay shacabka ku nool Muqdisho gaar ahaan mas'uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waa laga digayaa haddaba waa kee mas'uulkaas u hambaliyay soo kale waxa daawan doontaan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa jawaab kulul waxa uu ka bixiyay rasaastii ciidamada dawladda federaalka la sheegay inay ku fureen madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud haddaba muxuu ka yiri hadal si weyn baraha bulshada u qabsaday ayuu sheegay haddaba maxaa looga baahan yahay Xasan Sheekh Maxamuud muxuu xilligan ka fikirayaa wararka ugu dambeeya daawan doontaan sidoo kale waxa idin soo gudbin doonaa doorashada Soomaaliland iyo natiijada hordhaca ah iyo sidoo kale wararka ugu dambeeya xisbiyada ku horeeya natiijada doorashada Soomaaliland ayaa daawan doontaan qodobadaas ayaan ku faahfaahin doonaa saaxiibayaal fadlan haddii aad ku cusub tihiin subscribe wasaata gambala kana furta wala shirgalay saaxiibadii meel kasta ay joogaan idinko markaas kuma taga like-na inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin aynu ku bilaawno Allah u naxariistay waxa maanta gobolka Shabeellaha Dhexe gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Warciise lagu dilay taliyihii ururka lixaad ee gorgor ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in uu halkaas ku geeriyo taliyihii ururka lixaad ee ciidamada gorgor Allah u naxariistay Maxamed Cabdiwaxiid Faarax oo ahaa taliyihii ururka lixaad ee gorgor ayaa la sheegay inuu ku dhintay dagaal ka dhacay inta u dhaxaysa deegaanka Warciise iyo Aqab oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe wararka ayaa waxa intaas ay ku soo darayaan in taliyaha uu hogaaminayay dagaalka iyo askar kale ay ku dagaalameen ee dagaal qarar ay kula galeen al-shabaab ayaana soo kale dagaalka lagu dilay saraakiil iyo dagaalamayaal kale oo ciidanka ka tirsan waxaana la sheegay in laga qabsaday laba gaari kuwa kalena lagu gubay taliya Cabdiwaxiid ayaana ka mid ahaa dhalinyaradii ku biiray ciidamada xoogga dalka ee tababarka sare ee ku soo qaatay dalka Turkiga wuxuuna dalka ku soo laabtay isaga iyo ururkiisa horaantii sanadkan taliska ciidanka ayaana weli wax faahfaahin oo dheeraad ah aysan ka soo saarin dagaalka ku dhintay Allah u naxariistay taliya Maxamed Cabdiwaxiid Faarax taliyihii ururka lixaad ee ciidamada gorgor ee kumaandooska Soomaaliya dhanka kale dawladda federaalka ayaa tacsi ka dirtay dhimashada taliyahaasi wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa sheegay in markaas uu u shiiday dalkiisa iyo dadkiisa iyo sidoo kale diinta si uu difaacayeen uu geeriyooday soo kale mas'uuliyiinta ka hadlay waxaa ka mid ahaa dhammaanba shacabka Soomaaliyeed ayaana si weyn u galgishay geerida taliyaha ururka lixaad ciidamada gorgor ee xoogga dalka Soomaaliya al-shabaab ayaa dhankooda sheegtay mas'uuliyadda ayuuna sheegay in taliyaha iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ay ku direen dagaalka qaranka ah ee Warciise ku dhaxmaray ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya qabii hore ayaa daawanaysan janaalkeena ka ah wararka fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe ka saaro gambala kana furo markana taliyaha ciidamada asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa waxa uu faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay shaqaaqadii shalay ka dhacday magaalada Muqdisho gaar ahaan rasaastii lagu furay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Mahad Cabdiraxmaan ayaa markii hore sharaxaad ka bixiyay sida ay wax u dhaceen wuxuuna iska fogeeyay eedeynta loo jeeday ciidamada asluubta ee ah in ay ugu rasaaseen kolonyada uu la socday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gaari Cabdibilah ayaa mariyay askarta waxayna ahayd inuu istaago oo yiraahdo madaxweynihii hore ee Xasan Sheekh Maxamuud ayaan wadnaa askarta jidka ay u fur lahayd waa la soo dhaweyn lahaa madhiina gaariga waa gudbay markaas ayay waxa ay bilaabeen ciidamadu inay rasaas subiyaan sida uu ku dooday Mahad Cabdiraxmaan Aadan soo kale wuxuu intaas raaciyay hadii cid xabad kugu soo rido waxa ay tahay aadan ogeyn aadna xabad ayaad ugu jawaabaysaa ama hadii aad haysto xabad faataxa lama akhrinayo xabad ayaa loogu jawaabayaa waa hadal heenta iyo hadalka baraha bulshada maanta si weyn u qabsaday taliyaha uu markaas warbaahinta kula hadlay Muqdisho taliyaha ciidamada asluubta ayaa meesha ka saaray in falkan uu ahaa mid ku talagala isla markaana wararka la faafiyay ay yihiin kuwa ka fog xaqiiqda isagoo intaas ku daray in kaliya la doonayo in la sumcad diro ciidamada asluubta Soomaaliya sida uu hadalku u dhigay General Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo si weyn baraha bulshada aan kaga ah suunaanaysa kala duwan leh kuwaas oo ah taliyo shub iyo laandheere
jenaraal mahad cabdiraxmaan ayaa xusay inay raaligelin ugu fadhiyaan mas-uuliyiinta uu sheegay inay u gafeen ciidamada amniga ee shaqada u hayay qaranka Soomaaliyeed ugu dambeyntii wuxuu hoosta ka xariiqay in ciidamada asluubta Soomaaliya ay wadada u joogaan amni xaqiijinta isla markaana aysan jirin cid ay beegsanayaan hadalka ayaa ku soo beegmayay iyadoo dowladda federaalka loogu baaqay inay jawaab degdeg ah ka bixiso falkaas isla markaana ay baaris ku sameyso dhacdaas cidii lagu lugyaashan ama cidii lagu helna talaabo sharci ah laga qaado sida ay ku baaqeen qaar ka tirsan xildhibaanada dowladda federaalka ee mucaaradka ah beesha habargidir ayaa markaan waxa ay kursi ku yeelatay baarlamaanka cusub ee Soomaaliland waxaa welina socota tirinta codadka doorashooyinka isku sidka ah isniintii hore ee ka qabsamay gobolada iyo deegaanada Soomaaliland waxaana ka soo baxay natiijooyin hordhac ah kuwaas oo ku aadan musharaxiinta ku guuleystay doorashooyinka iyo xisbiyadooda natiijada hordhac ah ee laga helayo gobolada Sool ayaa sheegay in musharax Qaasim Aadan Saleebaan Cali uu ku guuleystay inuu ka mid noqdo mudanayaasha golaha wakiilada ee baarlamaanka Soomaaliland xildhibaan Qaasim Saleebaan oo ka soo baxay xisbiga wadani ayaa ka soo jeeda jufada fiqi shini beesha ayaa la ee habargidir sida ay muujinayso natiijada hordhac ah ee uu Qaasim ka helay gobolka Sool codadka uu ka soo baxay ayaa dhan 1922 cod Qaasim ayaa markii uu isku soo taagay musharaxnimada golaha wakiilada ee Soomaaliland waxaa lagu xiray magaalada Hargeysa iyada oo markii dambe la sii daayay wuxuuna xilligaas xirigiisa ku eedeeyay inay ka dambeeyeen madaxda xisbiga kulmiye guusha Qaasim ayaa durba qabsatay baraha bulshada waxaana ka hadlay gudoomiyaha ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Cali Cali oo ku hambaliyay guusha uu ka soo hooyay doorashada golaha wakiilada taas oo loo arkay in ay tahay mid habargeen markaas in beesha habargeen ahaan uu ugu hambaliyay komishanka ayaana sidoo kale sheegay in saacadii la soo dhaafay natiijada hordhaca ee doorashooyinka qabsaday ee markaas yihiin kuwa markaas soo taraya durbaba waxaa bilaabatay hadalhaynta iyo baaq loo jeedinayo Cali ah in uu ka waantoobo hambaliyada oo markaas xildhibaankaas u dirayo maadaama beesha habargeen uu ka soo jeedo Cali uu yahay taas ayaa ka dhigan in Cali hadduu hambaliyo markaas ay u aqoonsanayaan dowlad markaas madax bannaan Soomaaliland waana mid laga digayo in ay Soomaaliya ka godo inteeda kale waxa inay haatan ay raadinaysaa aqoonsi inay chance yeeshay weli aysan ka helin dowladda federaalka iyo beesha caalamka qaybihii gabagabadana oo ku sii dhownahay daawadayaal ha hilmaamin inaad subscribe ka saarataan gambalada kana furataan ula sheegaysaan saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo markaas kuma tagi laagana inoo reebaya aad baad u mahadsantihiin markaana ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta wuxuu gaaray magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle halkaas oo la sheegay in uu galay arrimaha ku saabsan fatahaadda iyo dhibaatooyinka ragaadiya shacabka ku nool tuulooyinka hoostaga magaalada Jowhar ee caasimadda maamul goboleedka Hirshabelle Ra'iisul Roble ayaana booqasho ku tagay magaalada ay dadku go'doomiyeen ee xarunta Hirshabelle Roble ayaa diyaarad helicopter ku tagay xarada ciidamada AMISOM ee magaalada Jowhar halkaas oo gaadiid nooca loo galbiyay waxaana ku soo dhaweeyay magaalada madaxweynaha Hirshabelle Cali Guud wasiiro iyo xildhibaan ugu horeeyay magaalada oo saacadihii soo dhaafay halkaas ku sugnaa wararka bariga dhaxana iyo arrimaha diblomaasiyadda ee caalamka waxa ugu waaweyn dalalka Germany iyo Ruushka ayaa dib u soo celiyay diblomaasiyadoodii ama duulimaadyadoodii tooska ahaa ee u dhaxeeyay kadib markii gelinkii hore ee shalay labada wadan ay joojiyeen socdaalka diyaaradaha tooska ah muran dhinaca diblomaasiyadda ah awgeed wasaaradda gaashaandhigga Jarmalka ayaa sheegtay in tallaabada ay ku joojisay diyaaradaha Ruushka ay qaaday kadib markii Ruushka ay diiday shirkadda diyaaradaha Lufthansa lagu magacaabo in ay u soo gacan geliso markaas inay gacanta ku dhigto garoomada murunka ayaa soo kala dhaxgalay dalalka midowga Yurub iyo Ruushka kadib markii ay diyaaradaha Ryanair ay ka soo kaceen dalka Greece kuna socotay wadanka lagu magacaabo Lithuania ee dowladda Belarus hawada ka helatay hawada markaas ka leexsay bishii aynu soo dhaafnay si ay u xirto saxafiga u dhashay dalkeeda oo ay markaas ay baadigoobayeen in muddo koorinta aysan labada dal soo celin duulimaadyo tooska ayaa markaas sii socday muddooyinkii ugu dambeeyay guud ahaan daawadayaal waa naginta wararka ugu weyn ee Soomaaliya caalamka aad kala socoteen channelkeena ka wararka fadlan halmaamin inaad subscribe ka saartaan gambalada kana furtaan oo share gareysaan saaxiibadii meel kasta joogaan idinkoo markaas kuma tagi laagina inoo reebaya aad baad u mahadsantiin ka qayb qaata dib u dhiska dalka aan ku sameynayno iyo muuqaalada qurux badan ee soo gudbinayno